maanta halkan u joognaa furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya oo ah dhisme ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed lahaansho u leeyihiin laga bilaabo maanta. waxaan rabaa annagoo soo koobayna barnaamijka inaan ugu yeero safiirkeena dalka Mareykanka magaalada Washington danjire Cali Shariif Axmed inuu kelmadiin ku habboon halkan ka soo jeediyo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya afadiisa marwada koowaad wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda howlwadeennada kale ee dowladda iyo kuwa safaaradda iyo marti sharafta nagala soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya magaca safaaradda magaca howlwadeennada safaaradda magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Mareykan waxaa sharaf ii ah inaan kugu soo dhaweeyo munaasabadan aadka qaali u ah oo ah muddo 30 sannadood markii ugu horeysay in annaga safaarad aan leenahay meeshaan muxuu ahaa laga iibiyo. safaaraddaas taasoo ka tarjumaysa tilmaamahaadii ahaa sharafta iyo muxuu ahaa karaamada Soomaaliya in la soo celiyo. marka waa aan kaaga mahadcelinayaa. safaaraddaani waxa ay ka kooban tahay mudane madaxweyne 10 qol. marka waxa aan rajaynayaa inay noqoto meel muxuu ahaa asaas u noqoto shaqada weyn ee aan doonayno labadan wadan ee muxuu ahaa wadanka Mareykanka aan saaxiibada nahay iyo wadankeena xiriirkooda xoojintiisa qayb weyn ka qaadata. safaaraddan waxaan ka iibsanay safaarad Colombia wadanka la yiraahdo oo ayagu lahaa muddo 50 sano ka badan iska lahaa ayaan ka iibsanay. marka waxaan rajaynayaa inay noqoto ay sansaan qof walba uu arko in ay tahay Soomaaliya way soo noqoto. Soomaaliya way soo noqoto. waana ma arko waxaan kale oo runtii rabaa laba kelmadood inaan tiraahdo. labada wasiir oo maxayd wafdiga la socdo midna uu yahay wasiirka arrimaha dibadda midna uu yahay wasiirkii maaliyadda oo isagu ku dadaalay muxuu ahaa isagoo ka jawaabayo fariintii madaxweynaha iyo siyaasadiisa iyo policy-ga ku saabsan ay safaaradaha waxa yar loo dhiibay inuu ka gooyo oo ka tashiilo wax safaaradaheena lagu iibiyo. ambassador Cali Shariif aad u mahadsan yahay. waxaan rabaa markan inaan siiyo runtii safaaraddan dhaqaalaha lagu iibiyey waa dhaqaalo dadka canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed laga aruuriyey. taana waxay ku timid in dakhligii la kordhiyey in lacagihii faraha badnaa ee meelaha ka bixi jiray la kontaroolay in musuqmaasuqii lala dagaalamay. waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa muddo badan aad kala socoteen warbaahinta. haddii aysan ahayn dadaalka uu u galay wasiirkeena maaliyadda maanta maana heleen dhaqaalahan ku iibsana safaarad. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. bismillaahi raxmaani raxiim. mudane madaxweyne iyo marwada madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda Awad iyo marti sharafta halka joogtay safiirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta sharaf weyn bay tahay farxad weyn bay tahay in guri aan leenahay maanta halkan laga iibiyo. aad baan ugu faraxsanahay runtii oo ka nasiibka nasaar weeyaan calankii Colombia laga dejiyay keenina la saaray waa farxad weyn. mudane madaxweyne annagoo tixraacayna baaqaagii ahaa in hantida qaranka wixii dumayna la hagaajiyo wax kalena aan ku darno meelaha muhiimaddu saarantay adduunkan aan safaarada ka samaysano annagoo taabujinayna baaqaagii clearka ahaa ee aad nasiisay ayaa tani kow ka tahay waxyaalihii aadna tiri qabta. maanta waxaan ku faraxsanahay sidaa daraaddeed iyadoo maanta suuro gashay in la furo. waxaa noogu xigi doonaa sidii amarka aad ku bixisay inaan mid ka samaysano magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa iyadana aan ku tira jiraa. meelo kale oo badan baan doonaynaa safaarada in laga sameeyo. dakhligeenu waa yar yahay laakiin waxay ku suuragelaysaa waxa weeyaan iyadoo oo wixii dalkaas soo galaba la isla ogaado meeshuu marayo oo iyadoo amarka dawladda lagu socday amarka madaxweynaha wax waliba halkay marayaan la ogaado. dad yow Soomaaliyeed baad ogaanaysaan ayay tani ku suura gashay in la sameeyo. waxaa kaloo ku xigi doona oo ajendaha noogu jira ama qoondaha noogu jira
in Pretoria mid laga iibiyo in meeshaan ku leenahay muxuu ahaa la yidhaahdo Nairobi ayadana dib loo dhiso waxyaalahaas baa ku jira madaxweyne amarkii aadna siisay baana lagu socdaa waxa kaloo ku jira in kuwa kale burbursan la dayactiro ayaa iyagana meesha ku jira waxa ku jira oo kale wixii hanti aan leenahay dalka gudihiisa in iyagana lasoo tirakoobkaas oo madaxweyne dhammaad ku jira oo hadhow aan ku keeni doono ciddii ku jirtana laga saaro dadka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo aad iyo aad waxaan doonayaa halkan madaxweyne dhowr jeer baan anagu halkan imid oo aqalkan iyo aqalka kale isku soo aragnay kana lagu conclusion ku noqday safiirka Ali Sharif iyo aad ugu mahad celinaya iyo wasiirka oo iyaguna tamarta ay lahaayeen dul dhigay ayaa runtii aan u mahad celinaya dhalinyarada ka soo shaqeysay Soomaaliyeed halkan ka shaqeysay wada volunteer-ka ku shaqeeya runtii volunteer-ka ku shaqeeya madaxweyne ayaan mahad celinaya madaalayaasha ayagoo lacag qaadayn haddana halka yimaado madaxweyne u shaqeeya dalkan ayaan mahad celinaya finally waxaan mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha oo markuu ogaaday inaad halkan imanayso madaxweyne this time 2 week ka shaqeynaya in lacagtan suura gashay la soo diro oo amar bixiyay runtii in lacagtaas suura gashay in la soo diro oo maanta aynu halkan lacagtii aan tirino aqalkan inagu soo wareego saadaradeed waan ku faraxsanahay anigu ruuxani waxaan iska ilaalinayaa emotion inuu galo meesha aan wax qaribaan iska ilaalinayaa really marka aad baan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka aad u mahadsan yahay maanta waxa aan furayno waa dhisme safaaradeed oo ay safaaraddeenu ku shaqayn doonto oo ay kirada uga bixi doonto oo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed insha Allah ay ku shaqayn doonaan laakiin safaaradda hore u furneed waxaana safiiradii soo shaqeeyay kamid ahaa wasiirkeena arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad oo muddo halkan safiirka ahaa waxyaabaha wasiirku uu noo sheegay waxaa kamid ah inay jireen dad Soomaaliyeed oo reer Mareykan oo is abaabulay oo rabay inay safaarad dhisaan qarashkooda ku dhisaan marka waxaan rabnaa asagoo ku hadlaaya magacii wasaaradda arrimaha dibadda iyo inuu yahay nin idinku dhow qulubtiina ku dhow inaan halkan ku soo dhaweeyno wasiirkaana madaxweynaha ku soo dhaweyn doona waadna mahadsantihiin وماسنتا عبد النور مدحوينه روده مدحوينها صاحبكي وزيرك الماليه سفيرك iyo hawlwadeennada safaaradda volunteerska iyo dadweynaha Soomaaliyeed we are also I'm told that also a representative from the State Department is here. They have been always supporting us, so they are also welcome to this important occasion. Marka intaana madaxweynaha soo dhaweyn waxaan rabaa inaan laba kelmadood sheego. Kelmad waxa waaye mahadnaq. Kelmadna waxa waaye is-xusuusin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka joogta oo safaaradda aad u garab istaagay oo iyagu markii hore ballan qaaday inay safaarad iibiyaan inaan u sheego in aan kelmadaan iyaga u sheegayo kelmaddu waxay tahay gadaal baan ka sheegi doona madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa hortaada adigana jeclaan lahaa inaa ogaatid muddo badan la sheegay dad Soomaaliyeed oo gabdho u badan oo volunteers ah oo tan iyo 2015 markii safaaraddii Soomaaliyeed dib loo furay 24 sano ka bacdi markay ay xirreyd dad Soomaaliya gabdho yar oo Mareykan ku koray iyo gabdho kale oo ilmo korsanayay oo Zahra Abraar ugu horeyso inay volunteer ku shaqeynayeen from day one waxaa ka mid ah gabadh la yiraahdo Cosab Sumaya marmar loogu yeero oo qoftii ugu horeyso halkan ka volunteer garaysa ahay ina Cabdiilaah Maalingo waxaa kaloo jirta gabadh la yiraahdo Khatra oo iyaduna volunteerska gadaal soo biiray waxaa jirta gabdhihii tagay Ayaan iyo Leyle iyo oo iyaguna shaqooyin kala helay laakiin safaaradda volunteer joogta waxaa ka mid ah gabar xaali la yiraahdo oo konferensyada ugu waaweyn wadankan kaligeed sameeyay Singlaandi madaxweyne dadkaas iyagoo volunteers ah subaxdii 7 waa soo galaan habeenkiina waxay shaqeeyaan haddii loo baahdo ilaa iyo midnight ma aha ka badbadin waa hadal runtii waxaa ka mid ah
حكمنا علي باشي وإن كستو استوى شغالة سفارة هاي وياهي درول لكن درول كنا كلمة عيبة معها ما قال يسوي واحد درول هي واحد بدن بيهاي إلا هي معنتي سفارة أنت على فريد حتى شقيلي مرة كتار كود مدحويري إسرائيل وحصو قدا مركب مرتينوت ما شراب وحصو قدا سودة كوجو قيبي حيسا هو قبل سفارة هي شقيسو وحا يجونا مدحويني محد شيء مدن تلمعبيد مدن dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga from California to Maine iyo inta u dhaxaysa oo ay ugu horeeyaan dadka reer Minnesota iyo dadka reer Ohio oo ah dadkii iyo Atlanta intaan Tennessee sheegay iyo Atlanta iyo waan sheegay madaxweyne Soomaalida Mareykanka joogto dhan وما يكلهرين ويكل دلال بالله وإنه كل دواعين كل جود وحي قرب يستعين سفارة الآن توت سفارة الصومالية ماشي قارتين ما قارتين تاسمر كوام هذقي طبعا مدحين وحا كل تاجن شريف محمد والسجرة ها انترتين كسفارة مدحين وحا هل كان جوجة وأمان مدن أمان توجو بدن برابس مدن من سوماليا وإنجنيرة وصدن كنا دولار قليل سفارة دمرك ورئيس سيدو هذه مرة واحد عبد الله برو حتى ما يروح كله جري ونجري ما تيجي ما قانو نيل إلى هذا نور ويسقونا نور مجوع نور شيخ يا ما نور كان واقع نور كان ومددالية وحاجة نور نور كي أو شيخ يالكم كل من جري وسنترال بنك ومدعو كان جري ما قد وايله نور شيخ عليمي على نور شيخ عبدي وأها سفارة إنك أسميه إنترنت سيستم كا لعقل أنا وشقي مدحوينه أنت سوى أمانتي ضدك بدن أمانته بدن وبديهين